barnaamijka ku saabsan insurance-ga ama qayb ahaan qaybaha loo gelinayo xoolaha iyo waxyaabaha la xiriira. Runtii wax aad muhiim u ah maadaama dhaqaalaha waddankeenu uu ku dhisan yahay ama ku tiirsan yahay xoolaha nool. Wixii soo raaceen, laakiin dadkeenu maadaama xoolaha aad ugu tiirsan yihiin, in xoolahaasi horumarintooda iyo caafimaadkooda iyo maalgelintooda laga wada shaqeeyo aad ay muhiim u tahay. Ayadahan ku bilownayna nicmooyinka Ilaahay uu ina siiyey isagoo inagu manaysanaya ayaa wuxuu inoo tilmaamayaa ahmiyadu ay leeyihiin xooluhu. Saasa Ilaahay wuxuu yidhi wal ancaama khalaqahaa lakum, xoolaha Ilaahay baa idin abuuray. Marka insaanka Ilaahay baa karaameeyey wax badan oo koonkan korkiisa saaran ayaa asagaa loo sameeyey inuu manaafacadsado. Waxaa ka mid ah marka xoolaha waxyaabaha marka nacfigooda ayaa la tiriyey. Waxay ka mid tahay inaan hilibkooda cunno, caanahooda cabno, in ay gaadiid inoo noqdaan oo meelaha fogfog iyo meelaha culayska waxaynan qaadi karin aan gaadiid ahaan u isticmaalno sida geela. Intaasoo dhan waxay ku tusaysaa marka ahmiyada ay leeyihiin. Marka inta kasoo shaqaysay iyo inta ku hawlan way mahadsan yihiin. Inaan horumarkaas la sii ballaariyana aad ay u wanaagsan tahay oo nicmo ay u tahay. Marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin shirkadaha caymiska xoolahaas ka kaashaday. Ummadeennana xaaladda hadda ay ku jirto abaaraha oo xooluhu ay halis ku jiraan oo roobabkii iyo biilaan ay dhacdayna, in ummadoo dhan lagu soo jeedo indhaheeda oo loo wada gurmado sidii loo badbaadin lahaa xoolaha. Maxaa yeelay xoolaha haddii ay meesha ka baxaan dadka ayaa ku tiirsan, dadkuna meesha way ka baxayaan. Marka haddii xooluhu ay noo hagaagaana nacfigooda ayaa dadku kasii faa'iidaysanayaan. Marka xoolo la hagaajiyo, arrimahooda la isku hagaajiyo waa dadka oo la hagaajiyo. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.